خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف الريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم تجويدك يوم عنيسا إن شاء الله مستقبل كان يسيف عن أقرتان لأن القرآن الكريم كأبنى ولا ريال ووحيالها عن آد ومهم سنرشينا حقها هاتتي الدنيا دي إتي آخر رب حدنا إن شاء الله وحن قصة دبينا ميكروفونك إن شاء الله تعالى أنور محمد شيخ ونو حد لدونا حوغا ير مدرسة وحي قبته سبتدي أحد يعني عرورة البرايو يوحيالا مستقبل صاصة إن شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Fellow brothers and sisters in Islam, we are gathered here today to celebrate what we, the students and teachers, have accomplished. We, the students of Masjid Abu Bakr, were taught for over a year. We sacrificed every Saturday and Sunday for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to thank all the teachers for taking the time to teach us every weekend through sickness and health. They teach us so we can become great Muslims one day. You might be wondering why this madrasa has come to an end. It's going to be the holy month of Ramadan, the greatest month of the year. This month is the month that Allah brought the Quran down. This month is a great chance to have a stronger deen. The first 10 days, Allah subhanahu wa ta'ala grants kindness and mercy upon all the believers. The following 10 days, Allah subhanahu wa ta'ala extends forgiveness for any wrongdoing. The final 10 days of this blessed month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala places us further away from hellfire and lets us begin the rest of the year sin-free. Once again, I just want to say thank you to all the students and teachers, and remember this quote: you only get one chance in this dunya to affect the outcomes in the hereafter. Choose wisely. Jazakumullah khair. Thank you. You know, I like the way he expressed siduu yani u kala bandhigay hadallada inkastoo ay badneen ayna tahay luqa yani aan ahayn luqadeena laakiin siduu yani u kala bandhigay hadallada uu rabay inuu idin jeediyo yani waa wax lagu farxo insha Allah taala caruurteena waxaan ka rajeynaynaa Allah subhanahu wa taala inay sidaas oo kale ay wax u fahmaan quraankana ay qalbigooda iyo maskaxdooda ay geliyaan walaalayaal barnaamijkan waa barnaamij aad u balaaran insha Allah taala yani waqtigan waa gudaha nagu soo jira marka hadda waxaan ku soo dhaweynaynaa Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan imaamka masjid as-Sabr sidii uu gabagaben uu sameeyay kadib insha Allah markii la qadeeyay kadib inta dhiman ayaan dhameysana si video loo dhameystiro waa hadhow barnaamijka yani Somali TV loo sii daayo تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة وهرين إلهي سبحانه وتعالى لو مهد نقوه إلهي وافجيي walaalaha in iyo macallimiinta iyo maamulka Masjid Abu Bakr in ay bilaabeen madrasadan maalin walba oo sabtiya iyo axada caruurta lagu baraayo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waxa weeyaan waa juhdi Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan uga baryayno inuu ka abaal mariyo caruurta madrasada dhigatana Ilaahay jalla wa ala uu ku anfaco. quraanku ayuha al-ikhwa wal akhawat saad la socotaan waa kitaabkii Ilaahay weeyaan waa kalaamkii Ilaahay weeyaan
carruurta muslimiinta ee galbeedka ku koraysana waxaa loo baahan yahay in lagu ababiyo, in la baro, in lagu dhaqo, in la xafadsiiyo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala. nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiis saxiixa ku yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu. khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu. waxaa idinku khayr badan kuwiina qur'aanka barta iyaguna dadka bara. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiiskan uu ku tilmaamayaa khayriyada iyo fadliga iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala uu u diyaariyey uguna ballan qaaday dadka iyagu wakhtigooga iyo juhdigooga ku bixinaya sidii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ay u baran lahaayeen. akhriskiisa ayay baranayaan, tafsiirkiisa ayay baranayaan, waxay ku dadaalayaan inay ku camal falaan. wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam sidoo kale ayuha alikhwa walakhawaat uu khayriyadaasi iyo wanaagga iyo fadliga uu u sugayaa kuwa iyaguna markay barteen qur'aankii iyaguna dadka qur-aankii baraya. waad ogtihiin haddaynu nahay aqaliyad muslimiina ama minority muslims oo dhulkan galbeedka ku nool, haddii aynaan ilaalin oo aynaan dadaal iyo juhdi badan ku bixin carruurteenna iyo generationada iyo jiilalka soo koraya, islaamnimadii way lumaysaa, diintii waa la waayayaa. innagaba ayuha alikhwa walakhawaat diinta iyo islaamnimada aabbayaashiin ayayna soo gaadhsiiyey. iyagaa ku dadaalay inayna baraan, iyaga ayaa ku dadaalay inay nagu dhaqaan diinta. waxaa haddii aynu dhul gaale aynu joogno waxaa lainooga baahan yahay inaynu dadaalkeenna inaynu laba jibbaarno. oo haddaynu aabbayaal iyo hooyooyin nahay, haddaynu imaamada masaajidada nahay, haddaynu nahay dadka maamulka u haya maraakiista iyo masaajidada, haddaynu nahay dadka waayeelka ah, dadka waxgaradka ah, dhallinyarta muslimiinta, qof walba waxaa looga baahan yahay inuu camalkan wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo inuu qof walbaaba kaalintiisa ka qaato, inuu qof walbaaba dadaalkiisa ku darsado, inuu qof walbaaba maskaxdiisa iyo maalkiisa iyo wakhtigiisa uu kaga qayb qaato. maxaa loola jeedaa? waa in la badbaadiyo carruurta muslimiinta, in carruurta muslimiinta la badbaadiyo. waxaana ugu horreeye lagu badbaadinaya waa in quluubtooda iyo caqligooga lagu xidho kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddii qur-aanka lagu barbaariyo iyagoo da'yar, qur-aanka way la noolaan doonaan, qur-aanku raad buu kaga tegi doonaa, qur-aanku ta'hiir buu noloshooda oo ku yeelan doonaa. laakiin ayuha alikhwa alakhawaat waxaan marnaba cudurdaar aan loo helayn aabbo iyo hooyo muslina oo cunigoogii ama ilmahoogii aanu kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala aanu akhriyi karayn. waxa weeyaan ayuha alikhwa alakhawaat, walaalada maamulka iyo imaamka iyo macallimiinta masaajidkan abubakar dadaal badan ayay hayaan, laakiin waxaa loo baahanyay inteenna kale inaynu ka qayb qaadanno, in loogu dadaalo sidii walaalada loo barbar istaagi lahaa. ama talo ha lagu taageero, ama waqti ha lagu taageero, ama maal iyo xoolo ha lagu taageero. camalkani waxa weeyaan waa camal ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala ku weyn. carruurtaa yaryar eed aragteen waxa weeyaan way u baahan yihiin ayuha alikhwa alakhawaat. dalkii islaamka ma joogaan, dhulkii muslimka kuma noolaa. waxaa loo baahan yahay in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala lagu barbaariyo, innaguna aynu juhdigan iyo dadaalkan aynu ka wada ka qayb qaadanno. hadalka inaan idinku dheereeyo dooni maayo. waxa weeyaan aabbe iyo hooyo walba waxaan ku dardaarayaa, waxa weeyaan ayayna ku dhaafin oo ayuuna wakhtigu ku weydaaranin intaanad carruurtaada qur-aanka aanad barin. wajazaakum allah khayr, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu. waxaan mahad u celinaynaa sheekh maxamed cabdiraxmaan hadallada wanaagsan, dardaaranka ah iyo guubaabinta. mahadweynaan noocayna waxaan leenahay jazaaka allah khayr ya sheekh. sidii caadiga ahayd sheekh mar kasta wuxuu guubaabin iyo dardaaran iyo iwaan walaalnimo ayuu siiyaa meelaha uu aadayo kale. haddana sidaa idin sheega waqtigeena waa gaawan yahay. aadaanka duhur
ayaan samaynaynaa salaadan dukanaynaa waa qadaynaynaa in sha allah tacaala kadibna inta dhiman barnaamijka ayaan sii wadana qofkii joogi karo tafadal cabdiraxmaan الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلا نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين خير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر ذنب وقابل توب شديد العقاب تلتول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يرخ تخلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسوله ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك أخذ كلمة على الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمئون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر
وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عظيم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليهم ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبعا طويلا وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقده وكيلا. This is the story of Abu Bakr al-Siddiq. Alright. He is regarded as Khalifa Rasulullah, the successor of Messenger of Allah and first of the rightly guided Khalifas, and being the rightful successor to the Prophet ﷺ. Abu Bakr has always been the closest friend and companion of the Prophet ﷺ. He was always there beside the Prophet ﷺ at every major event. It was Abu Bakr's wisdom that the Prophet ﷺ always honored. Abu Bakr is regarded to be among best persons from the followers of the Prophet ﷺ. As Umar ibn Khattab stated that if the faith of Abu Bakr was weighed against the faith of the people of the earth, the faith of Abu Bakr would outweigh the others. During the last few weeks of his life, the Prophet ﷺ preferred Abu Bakr to lead the Muslims in prayer while he was ill. Upon the Prophet ﷺ's death, it was Abu Bakr who demonstrated sagacity to keep the ranks of the Muslims together. The Prophet ﷺ had now left behind a clear will on who will succeed him. There was dissension between the two original tribes of Medina, namely Aus and Khazraj, regarding who would become the leader, the ruler of the Muslims after the Prophet ﷺ. This even led to the drawing of swords between them. Abu Bakr, Umar, and Abu Ubaidah ibn al-Jarrah rushed to the spot where the dispute almost turned bloody and delivered his famous speech to show the path of unity between the Muslims and declared that Umar should be the first Khalifa. In turn, Umar declared his allegiance to Abu Bakr, saying there is no better man amongst the Muslims after the Prophet ﷺ. The majority of the Sahaba, companions of the ﷺ, assembled there, followed suit, and pledged their allegiance to Abu Bakr. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناصرات نصرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم دمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسول أقت ليوم أجل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم.